عشان كده وحكي سنقولنا بقول يا فرط إلا بقول يرشد يا فرط يبيع لا عشان كده وحنا كسبسية هاي مهمة على ضعيف مواطن مدى والناس مهمة على ضعيف أما وحيابها لو يقلنا مهمة والناس مواطن والناس وحنا صفية وحنا صفية شجر وصعرة وحيابها كدع يد الكيسة مواطن wanaagsan wuxuu si feejigan ama si taxaddar leh uga socdaa waxyaabaha dalkiisa ka dhacaya waxa ay yihiin wax wacan iyo wax wanaagsan oo waxa uu ka dhacaya ayuu si fiican uga socdaa muwaadinka wanaagsan waxa lagu yaqaanaa qodobada soo socda muwaadinka wanaagsan waxa lagu yaqaanaa ama astaamihiisa waxa ka mid ah qodobada soo socda koow inuu وهوجانسنادو دستورك دلكيسا إنه وهوجانسنادو دستورك دلكيسا waxa uu qorayo ama waxa uu dhigayo inuu noqdo qof u hoggaansan oo qaata laba inuu noqdo qof daacad ah oo jecel dadkiisa iyo dalkiisa inuu noqdo qof daacad ah dalkiisa iyo dadkiisa ee aan noqonin khaain wadan ama dadka wadankooda musuqmaasuqa kula dhexnool ama dadka dadnimadooda neceb ama dadka dalkiisa horumarkiisa iyo waxyaabaha dadka ka soo horjeeda aan noqonin ee uu noqdo qof daacad u ah dalkiisa iyo dadkiisaba oo jecel iyaguna ay jecel yihiin saddex inuu inuu horumariyo wanaagga kana taliyo samaha inuu horumariyo wanaagga kana taliyo samaha oo aanu noqonin qof wax tashiira oo marba waxun ama wuxuu dadka soo dhex dhiga ee uu noqdo qof wanaagsan oo ka taliya wax wanaagsan ama waxyaabaha horumarka ee samaha ee waddankiisa qodobka shanaad inuu la qaybsado kolba qofka waxaya oo waxna aanu khasaarinin inuu warka qofka dadku sida wuxuu haystaa u wada qaybsadaan isna ula qaybsado noqonina qof wax khasaariyo oo wixii soo galaba ay gacantiisa ka baxaan ee noqdo qof wax kala tashiisha oo wax qabsado waxna haysta dadka kalena u taageera ama dadka kalena u tuburuca oo wixii uu hayaan ama iyagu hayaan ama isagoo haysta ay wada qaybsan karaan ay wada qaadan karaan qodobka lixaad inuu xoog u shaqeeyo iyadoo aan lagu khasbin inuu noqdo qof shaqeeya oo shaqada dowladda iyo waxyaabaha la qabanayo noqdo mid isagu ay ka soo go'day inuu shaqeeyo aan noqonin mid lagu khasbo tusaale ahaan iminka ninka wasiir ama wasiir ku-xigeen ama wax kale ama wax kastaba ha noqdee waa inuu noqdo qof shaqadiisa isagu daacad oo aan odhanin xafiiskiisaa kama tagtay shaqadiisaa kama qabatay waxaa ma qabatay aan ugu odhanin inuu noqdo isagu qof shaqadiisa heegan u ah iyadoo cidna khasbaynin cidna aan ka baqaynin qodobka inoogu sii xiga inuu iska bixiyo wixii cashuur ah ee sharciga dowladda waafaqsan inuu bixiyo wixii cashuura ee lagu leeyahay ee sharciga dowladda waafaqsan hadday mid maal oo muharadeed tahay hadday mid guri tahay hadday mid gaadiid tahayba iyo wixii cashuur loogu yeeshay waddankiisu ku leeyahay uu bixiyo oo aanu noqonin mid musuqmaasuqoo yidhahdo ka bixin anaga iska meela leeyahay qodobka inoogu sii xiga inuu taageero mashaariicda wax ka taraysa horumarka dalka inuu taageero mashaariicda wax ka taraysa horumarka dalka marka dalka waxaasaa la qabanaya ama maanta waxbarasha wax laga qabanaya caafimaad baa wax laga qabanaya waxyaabo kale wax laga qabanaya marka la yidhaahdo aanu isagu noqonin kii ka soo hara ama ka yidhahdo waxaa la qabanaya waa iska leeyihin markiiba mucaaradka noqday kasoo horjeesta aanu noqonin ee uu isaguna dhinaciisa qabtaa oo uu wax ka fuliyaa wixii horumar ee la qabanayo waddanka laga qabanayo isaguna uu qaybtiisa ka noqdaa sida dhirbeerista nadaafadda ilaalinta caafimaadka iyo wixii lamid ah horumarka dalka waxaa ka mid ah dhirbeerista marka waddanka dhul laga beerayo oo kale ee wadamada la wadaleeyayo dhulka marka nadaafad laga shaqaynayo magaalooyinka laga gurayo iskadiyanada xashiishyada nadaafadda suuqa la hagaajinayo iyo ilaalinta caafimaadka meelaha caafimaadka goobaha caafimaad ilaalintooda iyo waxyaabaha lamid ah marka wax laga qabanayo isna inuu noqdo dhinaciisa kii wax ka qabtay uu yidhahdo anigu shaqo kuma lihi aanu odhanin shaqo kuma lihi nadaafad aanu odhan anigu caafimaadka kama shaqeeyo waxyaabaha aanu ku hadlan anigu beeraley baan ahay waxyaabaha inaan odhanin ee uu noqdo qof u hanuunsan wixii waddanka horumar u ah waxaa halkan inoogu yaala
tixgeliyaan waa sharciga iyo kala dambeynta. meel kasta oo aadamigu ku nool yahay isagoo kooxa ama bulsho ah waxaa ka jiri jiray sharciyo lagu xakameeyo habdhaqankooda. meel kasta dadku joogi jiray weligoodba waxaa jiri jiray mar walba sharcigu si iscasriyeeyo waa la sii kordhiya ama waa la sii ballaariyaa, laakiin ilaa iyo intii adduunka dadku noolaa ama kooxaha u noolaadeen ama bulshooyin degan u noolaadeen waxa ay lahaayeen wax sharciya oo ay ku kala baxaan oo ay isku ogol yihiin oo ay isku raacsan yihiin, kaasoo ay isula tegi jireen marka ay dhibaata soo kala dhex gasho oo ay bulshooyinku dhaqan ahaan u lahaayeen inay ku kala baxaan ama geed ha tagaan ama sharci kale ha la tagaan. waxay lahaayeen waxyaabo sharciya oo xakameeya dadka dhaqankooda iyo hadba sida loo noolyahay. qaar ka mid ah xeerarka ayaa xidhiidh la leh waxyaabaha qaar ka mid ah xeerarkaas waxay xidhiidh la leeyihiin waxyaabaha ay diintu ina barayso. waxyaabaha ay diinta islaamku ina barayso ayaa waxaa ka mid ah waxyaabaha xeerarka dadka u ah ee ay dadku ku dhaqmaan, waayo waxa wanaagsan oo dhan dadka diintu way faraysaa. diintu waxay nalada waxa xuna laga haro, waxa wanaagsanna ha la qaato. markaa sidaa daraaddeed waxyaabaha ay diintu barayso waxaa ka mid ah sharciyada wanaagsan ee uu dadku ku dhaqmi karo ama lagu kala bixi karo. carruurta waxaa lagu soo koriyey inay fahmaan jiritaanka habdhaqanka bulshada oo ka shaqeeya. carruurta waxaa lagu soo barbaariyaa ama lagu soo koriyaa habdhaqanka ay bulshada iyo diintuba oo ka shaqeeya. carruurta markay yarata waa la kaxeeya malcamadaha la geeyaa, iskuulada la geeya, waxbarasha loo geeya. maxaa loo geynaya waxbarashada iyo malcamadaha iyo waxyaabaha? maxaa loo geynaya si uu qofku u noqdo qof tababaran oo kala garanaya waxa xun iyo waxa san. waayo markuu malcamada tago waxaa loo soo sheegaya wixii xumaaya wixii wacnaa. markuu iskuulka tagana sidoo kale waxa oranaya waxaas ka hara, waxaa kale iska daaya, waxaa sameeya, tarbiyadooda la hagaajinaya. markaa ilmuhu uu la qabsanaya wuxuu noqonaya ilmo xagga diinta iyo sharciga iyo waxyaabahaas oo noqonaysa. bulshada waxyaabaha aanay bulshada ogolayn ayaa had iyo jeer lagala taliya carruurta ama laga wacyigeliya ama loo sheega inaanay ahayn wax wanaagsan oo ay diintuna ogolayn bulshadoodana aanay ogolayn. habdhaqanka aanay bulshada ogolayn waa la isku ciqaabaa had iyo jeer. waxyaabaha ay dadka bulshooyinka islaamka ama bulshooyinka kale eebaha aadan waxa ay isla gaadhaan ee aanay ogolayn bulshadaas xeerkeeda ogolayn inta badan waa la isku xidhaa oo waa la isku ciqaabaa, waa la isku dacweeya. dadka ogolaada sharciga ee ixtiraama waxay ku noolaadaan nabad. dadka ixtiraama sharciga ee ixtiraama ee kala dambeynta lihi waxay ku noolaadaan nabad iyo cabsi la'aan. waayo qofku hadduu sharciga raaco wuxuu ogyahay inuu sharcigu xaqiisa siinayo, isaga xaqiisa laga siinayo hadduu qofka gabadhu sharcigu siinayo. sidaa daraaddeed si werwer la-aan oo dhibaato la-aan ayay dadkaasi ugu noolaadaan dhulka iyagoo fulinaya maxay sharciga iyo kala dambeynta, iyagana ay ku qabanayaan sharciga iyo kala dambeynta. muhiimadda ay leedahay sharciga iyo kala dambeyntu wixii muhiimada ee ay leedahay sharciga iyo kala dambeyntu wixii muhiimadu ah sharciga iyo kala dambeynta ayaa iyaguna halkan noogu qoran. qodobka koowaad wuxuu odhanaya waxaa lagu gaadhaa degenaansho siyaasadeed dowladuna dhibaato la-aan ayay dadweynaha ugu adeegtaa. haddii sharci jiro iyo kala dambeyni dadku iskuma soo dhacdhacayaan. siyaasadda dowladuna waxay noqonaysaa mid sideeda u fusha oo aan yeelanin qalalaase iyo waxyaabo ka hor yimaada ama dhibaatooyin ka hor yimaada oo joojiya shaqada dowladda hakiya aanay jirin bay noqonayaan. marka sidaa daraaddeed sharciga iyo kala dambeyntu wuxuu ku hagaa dadka inay degenaansho siyaasadeed dowladuna dhibaato la-aan ay dadkeeda u adeegto. qodobka labaad horumar dhaqaale ayaa lagu gaadhaa sharciga iyo kala dambeynta. horumar dhaqaale ayaa lagu gaadhaa. haddii sharci jiro horumarkaa dhaqaale wuu soconaya, laakiin haddii sharci jirta dhaqaalaha lagu jiri maayo. maalin wada goobaya, maalin wada lagu dhacaya, maalin wada lagu dilaya, maalinba wixii doona ayaa dhacaya. marka qofku haddii sharci iyo kala dambeyn meesha ka jirto qofku wuu horumaraya dhaqaalihiisu. maadaartaan iminka lacagaheena haddii aan dadbadeena sharci jirin dee lacagaha sarifyada suuqa la iskala fadhiyo ayaa la dhici lahaa, la goobi lahaa, la xoogi lahaa, macadayaasha suuqa la goobi lahaa. marka qof waliba wuxuu tixgelinayaa sharciga iyo kala dambeynta. wuxuu ogyahay hadduu wax kasaba oo la arkayo oo dhaca oo muuqdo uu sameeyo in la qabanayo dadna sharciga markiiba lala tiigsanayo oo maxkamad gaaraya arrinkiisu. qodobka saddexaad horumar bulsho ayaa lagu gaadhaa
ayay ku gaadhaa sharciga oo waayo dee qof waliba weygiisa iyo meesha uu maraya ayuu garanaya ama wixii xaq u leeyahay uu garanaya wixii aan xaq u lahayn uu garanaya qodobka afraad qodobka saddexaad dhibaato la-aan ayay dadku u qaybsanayaan hawlaha maalmeedkooda iyagoo aan cidna ka cabsanayn mashaakil kala dambeyn jirto dadku si nabad ah oo aan dhibaato lahayn ayaa hawl maalmeedkooda maalinta ku qabsanaya iyagoo aan meel ka baqaynin suuqa ka soo baqaynin wasaarad ka soo baqaynin cidna ka soo baqaynin ayaa qof walba meesha uu dan karaya hawl maalmeedkiisa ka soo dhamaysanaya ama shaqadiisa ka soo dhamaysanaya isagoo aan cidna ka cabsanayn qodobka afraad dadku waxay isdhexgalas yeeshaan bulshooyinka kala duwan iyagoo isdhaafsanaya afkaarta wanaagsan ee horumarka leh dadku haddii sharci jiro waxay afkaar ama waxay la yeeshaan horumarka ama iskaashi la yeeshaan dadyowga kale ee ay jaargeyiin ama wadamada kale iyagoo isdhaafsanaya afkaar iyo dhaqaale wixii marka soo kala dhex gala iyagoo horumarkooda ka talinaya sharcigan cuskanaya oo aan sharci darro iyo waxyaabahaas ka baqayn waxyaabaha ishortaaga sharciga iyo kala dambeynta sharciga iyo kala dambeyntaas waxyaabaha ishortaaga ama dhibaatada ku noqda ama carqalada ku ah ayaa halkana inoo sharaxaya ama inoogu sharaxaya koow waxaa ka mid waxyaabaha ishortaaga faqrigu wuxuu ishortaagaa sharciga iyo kala dambeynta qofka faqriga waxaa jira dad wax magarataa waxayna doonaana inay si sharci darro ah xoolo ku helaan dadka wax magaratada ah ay doonaan inay si sharci darro ah xoolo ku helaan waxa ay sameeyaan dagaal waxbay dhacaan waxbay boobaan musuqmaasuq ay sameeyaan sidaa daraaddeed faqriga ayaa ku kalifaya faqriga ayaa ku kalifaya inay wax dhacaan oo wax boobaan markaa dadkaas dadkoo dhan maaha waayo faqri badan dad badan oo faqriga oo wanaagsan oo sharcigana sidiisa u qaata ayaa jiray oo waa dadka wax magaratada ama aan sharciga waxba ka aqoonin ama liitada ee aan dadka wanaagsan ahayn qodobka labaad waxa weeyaan cudurradu isaguna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ishortaaga sharciga haddii meesha cudurro iyo aafooyin iyo waxyaaba ka dhacaan waxyaaba sharciga badan ayaa laga tallaabsanaya oo markaa si qofku caafimaadkiisa u helo wuxuu doonaa ayuu u samayn karaa waxaa ka mid a colaadaha meesha haddii colaado ka dhacaan sharciyo badan baa la jebinaya waayo in qof dhiig laga shubo in dad la dhaco in qabiil isdilaan in ciidamo isku duulaan waxyaabaha faraha badan ayaa iyaguna dhici kara oo meeshaana waxaa ka dhici kara dagaalo hadday naga colaada yimaadaan waxaa dhici kara in sharciga meel badan lagala dhaco waxyaabo badan ay xumaadaan iyadoo dadka qof walba qofka kale colaadiisa uu eegayo ee aanu eegayn sharciga waxaa kaloo ka mida jahli dadku markaanay aqoon lahayn ama dad waxgarad ahaanay ku jirin ama wadankaba aada xagga dhinaca waxbarashada uu ka liito waxaa dhici karta iyadana in sharciga waxyaabo badan laga khaldo waxaa kaloo ka mid a xidhiidhxumaduna waxa ay iyaduna wax yeeshaa sharciga iyo kala dambeynta waayo xidhiidhka xumi wuxuu xumeeyaa wixii wanaagsan ee sharciga wuxuuna jideeyaa waxaan sharci ahayn waxaa kaloo ka mid a musuqmaasuqa waxaa la yidhahdaa isaguna sharciga ayuu jira waayo qofka hadduu sharciga ku dhaqmayo musuqmaasuq maba samayn karo sababta tahay wuxuu ogyahay berrika maalin musuqmaasuqiisa la ogaanayo ama dhibaatadiisu ay soo baxayso sidaa daraaddeed musuqmaasuqu qofku kumaba kici karo hadduu sharciga wax ka garanayo ama uu yahay qof sharciga iyo kala dambeynta aaminsan waxaa kaloo ka mid a cadaaladdarrada waxaa la yidhahdaa iyaduna sharciga iyo kala dambeynta meel ayay kaga dhacdaa sababta tahay markii aan wax cadaalad la samaynaynin waxyaabo badan oo wanaagsan ayaa xumaanaya oo ay cadaaladdarradu xumaynaysa ama dadka had iyo jeer ku kaca cadaaladxumadu waxa ay sameeyaan inay wax sharci ah sharciga ka duwan waxaan sharci ahayn ay sharci ka dhigaan qof wuxuu sharci u lahaa inuu ka duwan qof kaloo sharci u lahaa inay siiyaan taasna maxaa keenaya cadaaladdarrada markaa maxay samaysay sharciga ayay meel kaga dhacday waxaa kaloo ka mid a waxyaabahaas oo dhan oo la isu wada keenay waxa ay yihiin waxyaabaha xumeeya ama dumiya sharciga iyo kala dambeynta sidaa daraaddeed waa in qof waliba uu halka uu joogo kaga dhaqmaa sharciga iyo kala dambeynta iyo waxyaabaha xumeynaya oo uu ka tago dadkana uu u sheega qof waliba wax wanaagsan qofka inta ardayda oo kale in sidinaasoo kale ardayda markaa dadku wax kala garanaysaan ee jahligii aad ka marantihiin ee uu tahay dad wax garanaya dee dadkii kale waad ka wacdin kartaan ama waad uga digi kartaan waxyaabaha xun ama qof wuxuu sameynaya markaad aragto waad ka duwi kartaa laakiin qof aan waxba garanayno jahligii ku
socon mooyaane ka joog loo garanayo sidaa daraaddeed waxaa laga yaabaa in waxaa xumaysay u wacan yihiinba sidaa daraaddeed waa inuu qof walba dhinaciisa uu ka qabtaa inuu sharciga halkiisa ku hayo oo aan noqonin sharcigu mid si ciyaar looga talaabsado ama waxyaabo qalada ama waxyaabo qofka dantiisa ama isagu dantiisa danta dadka kaliya waddanka ku jirin inuu qofku ula dhaqmo sharciga sidaa daraaddeed ayaynu casharkeena maanta halkaasaynu kusoo gaabinaynaa arday idinkana waxaa laydinka baahan yahay inaad casharada sidooda u qaadataan una akridaan YouTube-kiina aad subscribe siisaan sidaa daraaddeed cashar walba uu idiin soo galo marka uu soo galo aad sidaad markii ugu ogaataan qof waliba uu markuu galo channelka ee casharka gabaaranaya maadada kastaba ha noqotee inuu subscribe siiyo si uu u helo casharka ku xigana isla waqtigii ku xigay la soo geliyay oo u helo sidaa daraaddeed halkaas maanta waxaynu ugu joogaa casharkeena ahaa muwaadinka iyo sharciyada iyo sharciga kala dambeynta iyo sharciyada aynu ku baranaynay innaga fasalkeena 7 casharkeena cilmiga bulshada ahaa inuu halkaa maanta lagu joogo ilaa iyo inta xiisada dambe isugu imanayana arday wassalaamu calaykum waraxmatullahi